maanta waa sabti bisha agoosto 27 sanadka 2022 magaalada Baydhabo waxaan u soo booqday wafdi ka socda hay'adda King Salman Foundation oo hogaaminayay Yusuf Bakit Rahma oo madaxa hay'adda King Salman Foundation ee bariga Afrika waxay la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddiga gurmadka abaaraha ee heer wasiir ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankaas uu madaxweynaha ku soo dhaweeyay King Salman magaalada Baydhabo uga mahad celiyay shaqooyinkii hore u qabteen guddiga gurmadka abaaraha waxay gudbiyeen warbixin xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 18 degmo ay ka kooban tahay 3 gobol waxa hoosta laga xariiqay inay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo adag u baahan in wax laga qabto oo ilaa hadda hay'adaha wax ka qabanayaan laakiin loo baahan yahay in gurmadka socda la dardar geliyo hay'adda King Salman Foundation waxay noo sheegeen inay gacan weyn naga sii doonaan sidii dadka dhibaataysan ee reer Koonfur Galbeed u heli lahaayeen gurmadkii u baahan yihiin ayadoo ay og yihiin in Koonfur Galbeed ay tahay meesha abaarta sida zaa'idka u saameysay dalka Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo hay'adda King Salman Foundation maanta waxay raashin sii doontaa kun qoys oo degan magaalada Baydhabo oo tijaabo ah laakiin barnaamijka wuxuu bilaaban doonaa insha Allah isbuuca soo socda aadan u mahad celinaa King Salman Foundation wafdigooda waxaan kaloo u mahad celinaa hay'adda Tadaamun oo qayb ka ahayd wafdiga uu waday la socday Yusuf Bakit Rahma tirooyinka waxaa waaye ilaa hadda dadka Koonfur Galbeed oo gurmadka u baahan waa dad ka badan 2 milyan oo qof ayadoo dadka barakacayaasha Baydhabo lambarkooda lagu qiyaasay ilaa baraka qaarkood la gaarsiinayo wax ka badan 700 kun oo qof barakacayaasha waxay ka soo barakaceen gobolka Shabeellaha Hoose waxay aad u degeen magaalada Afgooy iyo Xamar inta u dhaxaysa dadkaas ay gurmad u baahan yihiin dadka degan Afgooy Xamar inta u dhaxaysa oo reer Koonfur Galbeed ku barakacayna arrimooda waa laga hadlay waxyaalaha aad hoos looga xariiqay waxa kamid ah in gurmadka dadka Koonfur Galbeed maadaama ay jiraan deegaano go'doonsan in lagu gaarsiiyo diyaarado deegaanada xeebta ah lagu gaarsiiyo dhinaca doomo lagu gaarsiiyo sida degmada Marka iyo degmada Baraawe magaalooyinka jidka u furan yahay cuntada jidka loo marsiiyo saddexdaas si ay dadka raashinka lagu gaarsiiyo gobolkan sida aad ogtiin waxa haysta culays amni oo ka badan dalka inkiisa kale oo shabaab ay saareen insha Allah waa ka gudbeen hadii Ilaahay yiraahdo aad u mahadsantiin waxay kulanku waxa kulli aad u qiimo badan madaxweynahana shirka gabagabadiisa wuxuu mahad celiyay King Salman shaqooyinka inoo soo qabteen wuxuuna ka codsaday inay dadaalkooda sii kordhiyaan aad u mahadsantiin